كوبا دعويسي كلامان كفتن دبلينا كوكا هذين كوبا دعويسي كلامان كينينا وكراسات كيانا ربي أو كوريال كيانا ربي أو كوريال كينينا وكراسات كيانا ربي أو كوريال وحن الشيء أنا حرا وحان دمان نانو حرا ورنيكا يا حرمتي كقاضي وردت كدما دون إلهي ولن هرب مجرى وحان دشي أنا حرا وحان لمن أنا حرا الله أن حريستي أبوان عبد محمد أمين علىها مناس وحان قاضي الله أن حريستي داود علي مصحف وجمعيه تكتيكا كلنتي أيغو حري لبضو بدشين أيغو حرنا ويدنتين والله هدي جانجو داود راعي كبرنا إن لحبالي حبالين كبنك ولي ما تشوقي أخياري أنوك في الفلاك سينا ورولي صالح قاسم بانول والإلهي ناريس داود المصحف ما يبهك هسوس ده حبت كما تغانا هاي سهفي هادرانا هاي حق هنتي وركانا هاي حق أروريانا هاي حارنتي مني ماذاي وحال الدوية حمرون حباليو حينول مذون نوقن حقنا وما بحانا هاي وروهيسكي وقدام بي والله أنه حريستي حسين وفارح سميه إرياديسة داودنا قاضي الله أنه حريستي مردن بقاضي مايه ورنما يهو الله أنه حريستي داود على مسافنا وحنكو حسوستا تعجبي فليي وتالين طبعا كمدحويني الله نحرسته يدنا أبوان قورة سميي شغفر بدا نولي قورة ورنين دينتاي إيا نين نالبا نحرسته إلهي وأباهي والحسن عين سمتروحو يري هدان المسرح سو استاقو داودنا قرب كيغا تاقنين كلسونين بقبو يري استي قرويا قبل كودع مداود بالحميي سومايهي قديدي قريوي قبل كودع wargoray gabal ku dhacab waan kaariya sameeyay jaanka ubaana la xameeyay labadaba Allah u naxariistay horta dad maran baati warwariyaasha markii wariye laga xira maanta oo dhan waa qayliyaan maanta yaa abwaaninta laga xire ala kulli xaal bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maaye ilaahu budiisa u nuuri daawud cali masxaf amiin dadka dhacdiisa waa godan yahay geedku mayaalo nin guuligiis u gargaaro waa gudba warninkan saqada ka hadlaya hadalkiisa godkan ka gartay ilaahay godka daawud ha u nuuriyo amiin waryaaneen war ma haysiine Soomaaliya iyo Soomaaliya markii hore dagaal siyaasadeed baa ka dhaxeeyay laakiin hadda mid saxaafadeed baa ku soo biiray war ma sooljo iyo nusaj baa islaay war ma yeefajiba la isku laaqaya adeer waxa jumhuuriyadda Soomaaliya soo gala ee ruwaayada xabsiga liintu ku cabi doonaan war geedkii Kalamaan ma Somaliland baa maanta qabsatay ambara dabshiday Somaliland waa jumhuuriyad barakaysan ee hawareeri war ugu daro cidii faraha la gashaana way ku gubanaysaa warnamiya ugeega Somaliland oo maareyn dhimana qabsatay war Somaliland soo dhulkii Soomaaliya maaha maxaa idin qabsada maxaa san idin ka qabsada war Kalamaan haddaan nahay anigu waxaan qabaa Somaliland ictiraafka in la siiyo hore waxa loo yiri ninkii gooni u goosto oo gees u guuro gabalkiisa dhacaayo war niyo ninkan karkaga siiya قبل كل عدد وروض وخذناها نلو وعلنا كيفية أستان قيبتي سومالان كشقينيسي حلي بانو هون كيبل سوالة دي ستيبا كوكعي وحينا دهن تيفيقا وحا اسكالي تليها النبو السجود سوماليا قولي كستو هرقيسوكو يالنا تيفيقا أستان والا قلي شيبي أرسانا كوحيلا تليهونا حمر بوكلا سعونيا مركا واحدين حلي بانو دقالك سومالان لغو سوقا دوادين عيبادين يهي والمركا قولنا نشاركنا هم عدية كو دقالان با أول بوانو سومالان عد sirdoonka kaga horeysa inaanay jirin xogtaana waa lagu kalsoonaan karaa baago xog lagu kalsoon yahay ma hayside dagaalka saxafiyiinta ka dhaxeeya yaan la siyaasadeynin oo Abdullah xabsiga liinta ku cabi doonta aryaal liinin heesta ma liitaa la yiriye laan
xildhibaankan inyi iska dhaafti dadkaaga dhinac ka raac nin alool xanuun haysa waa reesahaa liima dhanaan alool xanuun nin haysa waa reesahaa liima dhanaan cabdulla dadkaaga dhinac ka raac ma diidanine laakiin farafaraynta ha laga daayo somalilan gabooso waa kaa yeela kowdhe dadkaaga dhinac ka raac yaadan dhumine dhinac ka raac war hooy hooy dhinac ka raac adiguba adeer sidaa maahe waxa weeyaan wixii dhacayaba dhankiisa hayaha waa daniga dhabta allow dhowr somalilan allow dhowr warwar ma haysiine rugtii ganacsiga gobolka banaadir ee shabaab magacaabeen waa la kala dirayaa la yidhi walle malmaluuq baan laydinka taakelayn waryaadhayn madaxdii u xidhayin baa maxaa la kala diray aryaadhaha hore waxaa loo yidhi nin la soo xirayow ku sii xirin war waxaa kaloo la yidhi xor haddaad tahay nin la soo xiray oo xog kaa haya waa ku xidhaya warwarkaan naga dhex gelinine guddoomiyihii ku-xigeenkiisii waa xidhan yihiin intii kalena wasiirkii ganacsigaa kala diray war haddii ganacsatadii la kala diray dadka yaa wax u keenaya war waxaa la kala diray waa ganacsatadii uu shabaab magacaabay war horta 3G aaway 4G baa ka dambeeyey war dunidu waa hormartayo 5G baa la hiigsanayaa warwar ma haysiine 3G iyo ganacsatadaba gabayra madax u ah war jenaraal indhacadda wuxuu yidhi xildhibaano iyo wasiire shabaab ayaa jooga uu yidhi marka maxaa ganacsatada keliya laga rabaa maandhow wax ma kala ogide wasiiradu iyo xildhibaanaduba xasaasiyad ayay leeyihiin ambaroy xildhibaanada iyo wasiirada xasaasiya waa la daaweeyaa he lagama daaweeyo wareena wax ma kala ogidine maafiyada talyaanigu wasiirro iyo xildhibaano iyo taliyayaal ciidan bay ku leedahay dawladda war kuwaas birigaata roosa la yidhaahdaa warwar ma haysaane dhuusamareeb laba magac baa ka soo baxday dhegay iyo dhegdheer waan ogeyne maxaa ku soo darsamay mayamyam iyo qadaad weyn baa laga helay qoobey iyo madaxay maa iscasiilay maya gaadiig ariya meeli degan war carrabey iyo indheeyaa ku soo biiri war maahina musuqyo maasuqa maha soo galayaa la yidhi cadku soomaali wuxusheegeeda sidan baan ku nacay warwarka naga suga waxaa soo baxay nus iyo EVC laba nin oo la kala yidhaa aryaadhaha EVC waaba gardhee nuskaanu intuu ka yimid 4.5 kiyoo la kala jare amuu yahay war allera magacyadiinu ma kuu jinka naga tag annaguba kuwiina qowdhan iyo kowdha iyo kowdha iyo fowbar iyo fowbar han u dul qaadanaahe warka naga suga anigu nuska waxaan u qaatay lacagtimaha laga rabayaa wax ka dhiman yihiinaan u filaa anna EVC-ga waxaan u qaatay iigu soo tuuraan ku doortee war wado waxay isugu timi fadlan lacag ku shuba sow maaha war xildhibaanada galmudug markay guddoomiyaha dooranayeen oo xoogaha lacag loo kala tuuray maqaayiday isku balansadeen kadibna waxay ku ducaysteen ilaahayow maalin walba doorasho ka dhig war nimanyow 20kii xildhibaanoo alsunno ayay ilaa hadda shaqadii waxa yiran tahay la yidhi marka waxaan la yaabanahay 20ka xildhibaanoo 69ka kale ka muhiimsan sow baarlamaankii cod ku kala bixi jiray maaha mise meesha wax kalaa ku jira aryaadhaha hore waxaa loo yidhi gardarra garab og lagama kaco muga 20kaasu garabay heestaanaan u filay waxaa kaloo la yidhi mukulaal minankeedii joogtaa miciyo libaax bay leedahay war arrinta 20ka ma ahane macalinkaa gadaal taagan aryaada sheekh cabdixay iyo shalay khudbadii jimcada uga hadlay doorashada galmudug wuxuu yidhi soomaaliya waxay ka tegi laadaha wadaaddo ciyaalka xaafadduna waxay yidhaahdaan meel heblay ka shidan tahay marka wadaaddow maanta adinku waddanku idiin shidan yahaye waxna laydinma sheegi kara wax isku sheega war may walna sheegaan madii wadanka gobsadaan amay fadaana bilaamayd wasiiko buriyaas imako buriyaas inoo isku gobsadaan war sheekh shaakir taladas ma qaatay war reer Jabuuti waxay dhihi jireen walwaleeyo war kala yimid wadaadkeennii wakaas walwaleeyo war kala yimid wadaadkeennii wakaas aryaadhaha galmudug waa naga cilmi badan tahay waxaan arka xildhibaano gaalkacyo lagu dhaarihaayo oo la yidhi mid walba kitaabkii lagugu dhaari lahay hore u soo qaado mugaasa mid walba wuxuu heli kara soo qaata mid safiina salaad soo qaata mid arbiciinki soo qaata mid kutubki weynay soo qaata mid ajruumi soo qaata minhaaj soo qaata mid mawliid soo qaata iyo mid burda soo qaata ay naqdeen aan la tacajubay kadibna waxaan idhi arjuumi iyo arbiciin akhyaar ku dhaarataan arka arjuumi iyo arbiciin akhyaar ku dhaarataan arka haye cabdulla waxaad noo caddaysay inaad ku xidhan tahay facebooka guure iyo ustaad haynoosh wareena magacyada allaa lagu dhaartaaye kutub la soo qaatay iyo kutub laga soo tegey looma baahna war anugu waxaan la yaaba abwaan maxamed sahalow 2 farood safiino salaad saartay cilmi baaris galmudug ma saasaa u dambaysay war abwaan xildhibaan maxamed sahal shalow waa hadlay
wuxuuna yidhi dhulka haddii cabirkiisu luma waxaa laga soo bilaabaa meeshii derbi ugu dhoweyd galmudugna cabirkeedii waa lumay waxaanan ka soo bilaabaynaa meeshii ugu dambaysay annaqayla dhaanta anku qaatumeeste maahinoohe war qaatumiya cali khaliif galleer waayahan lama arag yuusuf cali samataraa wakiil u ah war ninkaa sheegaysa turkiga ugu dhumay ninkaa haddii la waayo marwaan baa laga rabaa waraadaa waxaandaan ugu daalin galmudug dhibaatada haysataa waxay tahay wax gurad iyo wax garadaa la kala garan la'yahay haaho horaa waxaa loo yidhi dadaba la xidhiirsha ma lehe dibna la xidhiirsha u leeyahay fara dufinle awal duugayaan warwar ma haysaana jawhar arrin laga naxaa ka dhacday oday baa wiilkiisii intuu ku soo dhegay ri camal u bireeyey hayehe muga u bireeyo ma karsadahe war onaga dhaaday dariigahay horta arrintu waa arrin laga murugoodo balaayaduna hadday waarto looma fadhiba ka soo baxda ninna gabanka ou dhala gacantiisa kuma dileema markaad gaajootaad garabba maalin dubatahaan maqli jiray war waa gaddeedii odaygii waa la soo qabtay war hati ka horba oday takfiir ee hawaadle ologshay ka gooriyey ha kaas amalahaayay kanna yaa shabeellada dhexe odayaasha jooga waa roonaa jireen xaa ku dhac ma waasheen wareedha wax garad wax guradaa bedele miyaan lagu dhihin jidgooyadii yaa ku badatay war godax barre wuxuu yidhi buntland inay imtixaanka ka qaadno waa diidey shahaadooyinkiina waa naga rabaan laba iswaafaqaysana ma ahan war maxkamadda adduunka miyamaar waxay ku xukuntay muslimiintii rohinji in dhulkooda lagu soo celiyo hayehe beledka markaahay ma ka guurayaan mugga war maya naagta waa laydee aan sunsinjii la dhahayey miyaa la rabaa mar labaad inay xasuuqdo warwar ma haysiina muslimiinta shiinaha xeraan la geliyaa la yidhi dhibaataana haysto waa go'doon war shiinaha cudur aan la aqoona ka dilaacinayo war maxaad shiinaha ka rabtiin annagaba dhagaxaana go'doomiyey war meeshuu dhulgariirka ka dhacay waa turkiga war yaa turkiga dhibaatada dhulgariirka allaha ka badbaajiyey annagaba qarax gariiraana wareershay nugu kala kaxeeya meesha aryadhaha muslimiinta shiinu waxuu ka rabaa sabaad ha dile aryaha odayaasha ilmaha shabeellada dhexe ilmahooda allah ka badbaadiye iimaanka allah geliye waryaa wax gurad iyo wax garad kala aqoonsada horta waryaada galmudug xildhibaanadii madaxweynaha xaqay ku wala dooranay kala garto waryaada sharciga ilaalsha war xishooda taga tuf haydinti